markana waa sheeko kale. ardaydii macallimiinta ugu noqday Guardiola ayaa haatan waxay tababare u yihiin kooxaha waaweyn ee Yurub. macallinka reer Spain Pep Guardiola ayaa waxa uu ka mid noqday shakhsiyaadka ugu saameynta badan saaxadda kubadda cagta xilligan, waxaana taasi sabab u ah farsamadiisa, qaabka uu u leeliyo kooxaha, taas oo soo gudbinaysa in tababarayaal fac weyn ka soo hoos shaqeeyeen, kuwaasoo maanta markaasi layliya ama majaraha u haya kooxo waaweyn oo Yurub. macallinka reer Catalan ayaa lagu tiriyaa macallinka labaad ee ugu guulaha badan taariikhda kadib Alex Ferguson oo tababarihii hore kooxda Manchester United ahaa. waa shakhsiga ugu saameynta badan xilligan kubadda cagta macallinka reer Spain. wargeyska Isbaanishka ee Sport ayaa daaha waxuu ka qaaday dhammaan guulihii uu gaaray Guardiola waxa ay saameyn ku yeesheen qaab ciyaareedka macallimiin kale oo ka soo hoshaqeeyey ninkan reer Spain. arrinta kale ee falsafooyintu ay leeyihiin waa meesha uu ugu sarreysa ee awood uu leeyahay in uu horumariyo waa waxqabadka ciyaartooyda uu tababaro u yahay. Guardiola ayaa awood cajiib leh waxa uu leeyahay in ciyaartooydiisa uu siiyo agabka lagama maarmaanka u ah si ay u horumariyaan xirfadiisa. tani kuma koobna kaliya ciyaartooyda, laakiin sidoo kale waxa uu kordhiyey macallin Pep Guardiola tababarayaasha mustaqbalka ku leh xirfadda kubadda cagta. baliiskan naga hooya Guardiola waxa uu ka qayb qaatay saameyn koox macallimiin sanadihii la soo dhaafay, waxaana uu ka dhigay hoggaanka kooxaha ugu waaweyn ee haatan Yurub. tusaalaha ugu horeeya waxaa laga helayaa Bayer Leverkusen oo Xabi Alonso uu leelinayo, kaasoo ku guulaystay horyaalkiisii ugu horreeyey ee Jarmalka Bundesliga taariikhda kooxda xil ciyaareedka hore. Alonso kama uusan shaqayn tababare ku-xigeen Guardiola, laakiin wuxuu kaloo ka soo shaqeeyey tababare Pep xilligii ay joogeen Bayern Munich. tusaalaha kale waa Vincent Kompany oo dhowaan loo magacaabay tababaraha cusub ee kooxda Bavarianka. difaacii hore ee kooxda City ayaa waxa uu ku soo aaday Pep Guardiola markii Manchester City uu joogay. waxa uu qaatay falsafada iyo qaab ciyaareedka macallinka reer Spain. xaqiiqda taas ayaana noqotay in uu Kompany noqdo macallimiinta ugu wanaagsan haatan. waxaa kaloo ka mid ah Arteta iyo Maresca oo Premier League hadda jooga. Mikel Arteta iyo Enzo Maresca oo labaduba caawiye u ahaa Pep Guardiola markii uu joogay Manchester City ayaa labaduba waxa ay si toos ah ay u barteen falsafada iyo caqiidada tababarihii hore ee kooxda Barcelona, hababka guulaha oo markaas ay hadda ka miri dhaliyeen. Arteta waxa uu hogaaminayaa mashruuca hamiga Arsenal ee horyaalka Ingiriiska tan iyo 2019 oo kooxda Gunners aysan ku guuleysan. Maresca ayaa hadda ku soo biiray Chelsea, waxaana laga filayaa in xil ciyaareedka hadda socda uu kooxda Chelsea guul la gaaro. Guardiola waxa uu xirfadiisa tababarnimo bilaabay 10 sano ee ugu horreeyay ee uu ku sugnaa kooxda cusub ee halka habka difaaca uu ka dhigay fikradda ugu horreeya ee markaas dhaqan gashay, waxaana ugu wacan guulaha waaweyn ee Jose Mourinho uu ka soo hoyay Portugal oo uu la soo hoyay Chelsea iyo Inter Milan iyo waliba taajkii Talyaaniga koobkii adduunka ee afraad 2006. laakiin filosofka haatan layliya kooxda Manchester City Pep Guardiola ayaa wuxuu ka mid yahay macallimiinta ugu wanaagsan marka laga soo tago Xabi Alonso, Mikel Arteta, Enzo Maresca iyo Vincent Kompany. macallimiin kale ayaa dhabaha ku soo jira oo uu tababare ama ka soo hoos shaqeeyey macallinka reer Spain Pep Guardiola.